maxkamadda gobolka Murudijeex ayaa salaasada 16 July waxa ay 4 sano oo xabsi ah iyo 4 milyan oo ganaaxa ku xukuntay laba eedeysane oo lagu soo qabtay maandooriyaasha khamriga iyo xashiishada oo ay soo galiyeen magaalada Hargeysa. Garsoore Khalid Cabdi Shiil oo garsoore xukunka ku fuliyay labada eedeysane ayaa sheegay in labada eedeysane ay maxkamadda horteeda qiraal ka noqdeen dambiga ah inay maandooriyo soo galiyeen dalka. Garsoore Khalid Cabdi Shiil ayaa ka digay in qof kasta oo maandooriya dalka soo galiya ama beera lagu xukumi doono 3 sano ilaa 5 sano oo xadhig ciqaabeed ah iyo ganax lacageed oo dhan 3 milyan oo Somaliland shilin ah. xafiiska xeerlaalinta iyo bilayskii soo qabtay waxay ku guuleysteen inay ku cadeeyaan labada xukunsane inay khamrigan iyagu dalka soo galiyeen iyaguna qiraal baabay ku ahaayeen maxkamadduna si ay uga waantoobaan ummaduna uga nasato fasahaadka maandooriyaha oo ah waxa uu aabaha iyo hooyadaba dambiyada dhaca waxay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba 4 sano iyo 4 milyan oo ganaaxa 4 sano waxaan filayaa inay ku waantoobi doonaan maandooriyahana lagaga nasan doono insha Allah. Garsoore Cabdi Ibrahim oo la hadlay codka bariga Afrika ayaa sheegay in eedeysanayaasha la xukumay lagu soo qabtay khamri dhan 438 litir oo khamri ah iyo tiro kale oo xashiishad ah isla markaana ay ka soo qaadeen magaalada Harta Sheekha ee dalka Itoobiya. Khamrigaas oo lagu soo shubay caagadihii biyaha loogu talagalay oo ah iyada laftigeedu xirfad ay imika adeegsadaan dadka muqaadaraadka ka shaqeeya waxa lagu soo qabtay khamriga laba eedeysane waxay maxkamadda horteeda ka qirtay inay khamrigan ka soo galiyeen dalka Itoobiya ay harta ka soo qaadeen iyagoo doonaya inay qaybiyaan oo ay iibiyaan ay ciidanka booliisku ku soo qabteen. Dhinaca kale garyaqaan Cabdirsaaq ayaa soo jeediyay in dadka ka ganacsada iibinta khamriga iyo soo gelintaba laga qaado tallaabo adag iyo ciqaab sabab u noqota in ay ka waantoobaan ka ganacsiga maandooriyaha. Cidda soo gelinaysa ee wadanka keenaysa waxa weey halkan maxay ahayd waa in la ciqaabo waxa weey si loo dabargooyo waxa weey ka dawladahan iyo ka bulshahaanba waa in iskaga tiirsanaa waxaan leenahay bulshadeena aafada ugu weyn ee ummada ku baabaada waa draagiska wax kasta oo draagiska nooc doonaha ahaade waxaan ka mideysanahay inaan la dagaalano oo ka dabargoyn ma aha markii ugu horeysay ee maxkamadda gobolka Murudijeex ay xukun ciqaab iyo ganax lacageed oo intaasi dhan ay ku rido eedeysanayaal lagu soo qabtay maandooriyaasha kala duwan oo ay dalka soo galiyeen. Xamse Xirsaxayd wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa.